wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada caawa barnaamijka ku soo qaadi doonana waxaa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo shir degdeg ah isugu yeeray taliyayaasha ugu sareeya ciidanka xoogga dalka si uu go'aan uga qaato duulaanka ay wado Kenya wuxuu yahay qorshaha madaxweynaha maxaase ka jira in qorshe ciidamo si gaar ah u tababaran lagu geynayo xuduudda uu socdo xogihii ugu dambeeyay ayaan idin soo gudbin doonaa dowladda Kenya oo war ka soo saartay dagaalkii Beled Xaawo iyo dacwad ka dhanaa dowladda federaalka oo ay u gudbisay ururka midowga Afrika haddaba maxay tahay cabashada Kenya oo ciidamada xoogga dalka ay maanta wacdar ku dhigeen jabhadii ay soo hubaysay Jubbaland oo war la yaab leh ka soo saartay dagaalkii Beled Xaawo iyadoo taageero u muujisay Kenya haddaba maxay tahay sababta ay Jubbaland u difaacayso Kenya oo ku soo gardarootay Soomaaliya wararkeena kalena waxaa kamid ah سعيدني أو قاضي طلابه كفر حسين مدحوين فرماجو كدي مركي وشاعية إن لقبنا يدور شذا ذلك حل أمان طلبوا مي دنجير جيمس سوان دولة قدر أو تاجر وين وجسد دولة الفدرالك بلن قاضينا إن يقرب تجنان دون مدحوين فرماجو هي دولة إثيوبيا أو كهذا شيء حالة عاصمات رئيس الوزراء أبي أحمد وضبط سيكون فاهين دونا برنامج إن شاء الله وأنا هبين سنين عشان لبعتن كبيش كوباد جناية سنة كلامكم كوي لبعتن barnaamijka wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka hadaba daawada ka qayb qaadada dibudhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaan fadlan nala faafiya wararka oo gaarsiiya saaxiibadiina idinkoo ku sheegareynaya baraha bulshada mahadsanidin aan ku bilowno wararkeena waxaa la filayaa in goordhow ay markaasi magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya shir degdeg ah ku yeeshaan madaxweynaha qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyayaasha ugu sareeya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si ay uga wada hadlaan xaaladda soo korortay ku saabsan ciidamada ay soo hubaysay dowladda Kenya ee xalayto saqdii dhexe weerarka ku soo qaaday degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo oo ay gacanta ku hayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed madaxweyne Farmaajo ayaa gabi ahaanba ku wargeliyay taliyayaasha ciidamada in ay markaasi ka soo qayb galaan shirkan xasaasiga ah oo markaasi go'aan kama dambaysa isla marhaantana ah go'aan geesnimo leh looga qaadanayo duulaanka iyo daandaansiga ay wado dowladda Kenya oo ku soo xadgudubtay qarannimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya kadib markii jabhado ay soo hubaysay ay xalay saqdii dhexe weerar ku soo qaadeen degmada Beled Xaawo iyadoo ugu dambeyntiina ciidamadaasi qaarkood la soo qabqabtay halka kuwii kalena ay halkaasi isaga carareen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo isagu kal horeyba markaasi xiriirka u jiray dowladda Kenya ayaa iminka waxa uu qaadanayaa tallaabo kale oo markaasi geesinimo leh isagoo iminka diyaarinaya ciidamo si gaar ah u tababaran oo si casri ah dhowaan dowladaha markaasi taageera Soomaaliya ay ugu soo tababareen markaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya si ay isaga difaacdo cadawgeeda waxaana la qorsheynayaa in ciidamadan sida gaarka u tababaran laga dejiyo xuduudda ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya si ay u difaacaan markaasi sharafta iyo dhulka Soomaaliyeed madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa iminka waxa uu doonayaa in uu markaasi dib u dhigto ololaha doorashada isagoo doonaya inuu xoog saaro sidii uu meel isaga saari lahaa Kenya oo iyadu wada daandaansi kuna soo darsatay duulaan ay markaasi u soo adeegsanayso wiilal Soomaaliyeed oo markaasi ay si kale u isticmaalayso wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda gobolka Gedo waxay sheegayaan in haatan ammaanka guud ee gobolkaasi iyo xuduudaba ay gacanta ku hayaan ciidamada xoogga Soomaaliyeed oo iyagu dhoola tusyo kala duwan iyo roondooyin ku sameynaya xuduudda waxaana markaasi halkaasi isaga cararay ciidamadii ay soo abaabushay Kenya oo gabi ahaanba halkaasi isaga baxay halka kuwa kalena la qabtay waxaana sidoo kale jira warar sheegaya in qaarkood ay markaasi isku soo dhiibeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyaga oo sheegay in la qalday qaybaha hore wararkeena ayaa daawanaysa dowladda Kenya ayaa war rasmi ah waxay ka soo saartay dagaaladii xalay ilaa saaka ka dhacay magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo kuwaasi oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay inay ciidanka dowladda ku soo qaadeen jabhad fallaaga oo ay soo hubaysay Kenya wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa qoraal ay u dirtay gudoomiyaha midowga Afrika ku sheegtay inay aad uga walaacsan tahay dagaalka ka soo cusboonaaday xuduudda gaar ahaan magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo Kenya waxay sheegtay in dagaalka uu u muuqdo inuu u dhaxeeyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland Kenya ayaa intaas ku dartay in walaaceeda ugu weyn uu yahay in dagaalka uu dhaliyo barakac markaasi dadka shacabka ah uuna horseedi karo qaxooti badan oo magangeliyo doon ah oo soo gala Kenya taasi oo ka sii dari karta xaaladda markii horeba xumeyd ee Soomaaliya iyo xirooyinka qaxootiga Kenya waxaa sidoo kale ay sheegtay inay ka walaacsan tahay in haddii dagaalku uu sii socdo in xaaladda ay sii amaba ay ka sii dari karto waan xaaladda gobolka isla markaana adkeyn karto xaaladda amni
dib u dhacna u keeni karto guulihii laga gaaray dagaalka lagula jiro argagixisada. Kenya ayaa si rasmi ah qoraalkan uga jawaabeen eedeynta dowladda Soomaaliya ah inay Kenya soo hubaysay jabhado markaasi fallaaga ah, waxaana wasiirka warfaafinta Soomaaliya uu isagu markaasi cambaareeyay duulaanka gardarrada ah ee laga soo abaabulay gudaha dalka Kenya, kaasi oo khilaafsan maslaxada nabadda markaasi labada dhinac. Kenya waxay iyadu iminka markaasi walaac ka muujinaysaa ciidamadii markaasi soo weeraray Saakay degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo, iyadoona arrintaasi iska fogeynaysa. Kenya ayaa ugu dambeyn ugu baaqday in dagaalka si degdeg ah loo joojiyo isla markaana xaaladda sidii hore lagu soo celiyo. Isla wararkaas ayaynu ku guda jirnay taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Generaal Maxamed Tahliil Biixi ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaalkii ilaa iyo xalayto ilaa maanta ka dhacay magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ee dhex maray ciidamada taabacsan Jubbaland iyo kuwa dowladda. Waxa uu sheegay in dagaalka markaasi haatan la soo afjaray. Taliyaha ciidamada dhulka ayaa sheegay in ciidamada maxaabiista ah ay in badan oo kamid ah hore ula soo xiriireen ciidamada dowladda oo markaasi ahaayeen kuwa sugayay fursad ay kaga soo baxsadaan meelaha markaasi lagu haysto si markaasi ay qayb uga noqdaan ciidamada xoogga Soomaaliyeed. barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaa daawanaysaan. Madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa beeniyay war uu sheegay wasiirka warfaafinta dowladda federaalka oo ah in dagaal ka dhacay Beled Xaawo ay ku qabteen in ku dhow 100 maxaabiis oo ah ciidamada Jubbaland. waraysi uu siiyay VOA-da ayuu Maxamuud Sayid Aadan ku eedeeyay dowladda federaalka inay geysay Beled Xaawo ciidamo aan dadka u tureynin, kuwaas oo sababay dadka rayidka ah in ay Beled Xaawo ku geeriyoodaan. nin wasiir ah oo dhahaya maxaabiis ayaan ku qabanay dagaal ka dhacay Beled Xaawo waa caadadooda in baraha bulshada ay been ka buuxiyaan. wasiir ku faanaya maxaabiis inaan u jawaabo ma ahan ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan oo mar la weydiiyay wararka sheegaya in maxaabiis looga qabsaday magaalada Beled Xaawo. madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaa sidoo kale beeniyay in dagaalka Beled Xaawo ay qayb ka ahaayeen ciidamada Kenya. dowladda Kenya daris ayaa nahay, annaga dowlad goboleed ayaa nahay. dowladda federaalka iyada mas'uulka ah xiriirka wadamada dariska ah, Kenyana ma joogto meesha ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan oo u muuqday mid difaacaya Kenya. magaalada Beled Xaawo ayaa xaaladeedu hadda waxay tahay mid yara degan kadib markii ay istaageen dagaal ay dad badan ku dhinteen oo u dhexeeya ciidamada daacad ah dowladda federaalka iyo ciidamo markaasi taabacsan maamulka Jubbaland, balse la fahamsan yahay in markaasi laga soo abaabulay gudaha dalkaasi Kenya. waa hagaag wali warqaad TV ayaa dinagala socotaan. waxaa maanta magaalada Garowe ee xarunta Puntland gaaray wakiilka qaramada midoobay James Swan iyo wafdi uu hogaaminayo, iyagoo xarunta madaxtooyada kulan kula yeeshay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. wakiilka qaramada midoobay waxa wafdigiisa ka mid ahaa madaxda hay'adaha WFP, UNHCR iyo UN Women, iyadoo kadib kulan ay markaasi la qaateen madaxweynaha Puntland sheegay inay ka wada hadleen shaqooyinka hay'adaha qaramada midoobay ka wadaan Puntland iyo arrimaha doorashada. war ka soo baxay madaxtooyada Puntland waxaa markaasi lagu sheegay in Puntland iyadu diyaar u tahay in la qabto doorashada dalka, isla marxaantaana la isfahmo oo xaalka doorashada markaasi heshiis laga gaaro. ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay James Swan ayaa muujiyay sida ay beesha caalamka u doonayso in wada hadal lagu dhameeyo muranka ka dhashay doorashada Soomaaliya si loo gaaro heshiis laguna hirgeliyo doorasho wada ogol ah oo markaasi lagu wada qanacsan yahay, isagoo sidoo kale xusay muhiimadda ay leedahay xoojinta xiriirka dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka dowladda dhexe. waa hagaaga ibikana wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Durraan oo booqasho rasmi ah ku gaaray dalka Qatar ayaa waxa uu markaasi la kulmay wasiirka dhigiisa dalkaasi Qatar, iyadoo dowladda Qatarna ay taageero u ballan qaaday. kulanka ayaa looga hadlay iskaashiga dhismaha awoodaha waaxyaha dawliga ah, isku xirka suuqyada shaqada ee labada dal iyo furitaanka suuqa shaqada Qatar. wasiir Durraan waxaa socdaalkan ku heliyay saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, iyadoo muddada ay halkaa ku sugan yihiin kulamo sidoo kale la qaadan doona saraakiisha sare ee dalkaasi. dowladda Qatar ayaa iyadu aalaba garab istaag iyo taageero waxay u muujisaa dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyada oo dalka Soomaaliyana mashaariic horumarineed oo kala duwan oo dadka shacabka ay ku diirsadeen ka fulisay. ugu dambeyntiina dowladda Itoobiya ayaa ka hadashay warar maalmahan ku faafay baraha bulshada oo sheegayay in caafimaadka ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu yahay mid aad u liita. war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa lagu tilmaamay warkaas inuu yahay mid been abuur ah, iyadoo looga digay shacabka
inay rumaystaan wararka lagu faafiyo baraha bulshada. Waxaan ka codsanaynaa shacabka inay ka feejignaadaan wararka been abuurka ah ee la isla dhex marayo baraha bulshada ee ku saabsan xaaladda caafimaad ee Abiy Ahmed, ayaa lagu yiri qoraal la soo dhigay barta Facebook ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya. Dowladda ayaana faahfaahin ka bixin shakiga la gelinayo xaaladda caafimaad ee ra'iisul wasaare Abiy. Dadka qaar ayaana aaminsan in ay wax ka jiraan warka sida weyn baraha bulshada ugu baahay ayna dowladda wax qarinayso. Qodobkaas ayaa u dambeeyay warkeena tan iyo warkan war la mid ah intaynu dib ugu kulmi doono. Nabadgelyo.